السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhamaantii ahelka iyo asxaabta channelkayga ku xidhan kusoo dhawaada channelkayga Modern Somali Food. waa maalin cusub iyo video cusub. maanta waxaan rajeynayaa videogan inaad si gaar ah uga heli doontaan maadaama oo reerkaysa u dhan yihiin ay anfici doonto yar iyo weynba. maasha Allah haddaad ka heshaan muuqaalada aan idiin soo geliyo fadlan waxaad kusoo biirtaan channelkayga qaybna ka noqda subscribe iyo like tana ii saara si aad videoyada aan mar walba soo geliyo aad ula socotaan haddii Ilaahay idhaahdo. intaan videogeena guda galin maanta waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan muuqaalka soo socda. cuntadan maanta idinla wadaagaya waxa la yiraahdaa waxa weeyaan one pot chicken pasta ama waa baasto cream iyo digaag lagu sameeyay sidan ay soo baxday cuntadeena markaan dhameystirnay. imkana insha Allah waxaan guda gali doonaa waxay ka kooban tahay xagan saad hore u arkaysaan waxay noo yaala basal barbarooni saddex nooc oo kala duwan cheese ba inoo yaala sidoo kale waxa aan ku dari doonaa digaag ama aan soo jarjartay oo soo maydhan soo nadiifiyay. halkan waxa ii taala toon waa toon ridqan oo tuman oo diyaarsan. xagan waxaan ku hayaa filfil ama black peppers. halkan waxa weeyaan pasta seasoning saliid. xagani waxa weeyaan tomato paste ama tamaandho qasaac. waa milixdii weyn imkana xagan ku haysanaa of course iyo saliideeni. maasha Allah imika waxaan guda galay inaan cuntada kariyo. distida ayaa waxaan ku shubanayaa saliid inta aniga igu filan qof walba inta ku filan ayuu ku shubanayaa haddii Ilaahay idhaahdo. waxaan ku darayaa digaagaygii aan soo jarjartaan soo diyaarsaday. digaagu markuu inoo yara bislaadan yara huurino waxaan ku darayaa basashii. inta xabay basash ka koobneedna waniga hore idinku soo sharaxay. waan isku yara shiilayaa in yar waan yara daboolayaa ilaa intay basashu ka casaanayso ama aan arkay inay ka soo bislaanayso. kadib waxaan ku darayaa barbaroonigeeni saddexda nooc ahaa ee soo jarjaray oo soo diyaariyay. saddexda nooc ee kala duwan kalaradooda had iyo jeer aad baan u isticmaalaa. cuntada way qurxisaa markay cuntada bislaato markaad sameynaysa xataa waad ku indha doogsanaysaa midaba kala wada duwan bay cuntada ku dhaqanaysaa qurux maasha Allah tabaaraka raxmaan. imika waxaan ku darayaa toon. hadii jaraan waxaan jeclay cuntadayda inaan toon fiican ku daro oo hadhow urteeda udgoon noqoto. milqaacad weyn oo toona ayaan ku darsaday laakiin haddaad jeceshahay waad ka yareysan kartaa waanad ka badsan kartaa. sidoo kale waxaan ku darayaa xawaash ii diyaar ah oo baastada loogu talagalay. kulli qof waliba wadanku joogo uu ka helayaa xawaashida noocyada bariiska iyo baastada loogu talagalay. marka anigu kan diyaarka ah ayaan maanta isticmaalayaa. wax xawaashi kala fara badan oo nooc kala ma raba inaan ku daro. laba milqaacadood baan kaga darsaday sidoo udgoonku iigu yani cuntada aad iigu udgoonaato. milixdana anigu dusha ayaan qiyaasteeda ka garanayaa laakiin qof walba isaga inta ku filan isaga garan doona. sidoo kale waxaan ku darayaa in yar oo basbaas cas. basbaaska cas urtiisu aad buu udgoon tahay. paprika na waa la yiraahdaa. kuleel badanna uma sameynayso maadaama hadhow toole kulay in Europeya iyo tamaandho qasaacdi wax kale hadhow dusha lagaga dari doono dhadhanku kuleel xooga noqon maayo laakiin dhadhan yar oo macaan oo masha Allah diirimaad marka la cunayo diirimaad cunaha ka dareemayso ayuu noqonayaa. imika waxaan ku darayaa tamaandho qasaacdeeni. in alla yaala inta kugu filan ayaad ku daraysaa. cuntadeena maanta qiyaas kooban ayaan dadka ma siinayo. waxaan jecelahay in markaan anigu cuntada sameynayo cabirka dusha ayaan kulli ka haystaa maadaama qacanteedu la qabsatay. tamaandho qasaacda markaan ku daray kadibna kamasaro in yar oo kamasara ayaan dusha kaga daray si udgoonka ama suugadeena udgoonkiisu uu soo baxo insha Allah hadhow toole. imika isku yara huurinayaa intuu ka yara bislaanayso. intaana waxaan kasii faa'iideysanayaa waqtiga oo makaroonihii ayaan sii saarayaa dabka. in yaroo saliida iyo in yaroo milixa ayaan biyaha badanaa ku daraa. waxay ka caawinaysaa makaroonahaagu inuuna isku dhegdhegin oo hadhow toole markuu bislaado kii oo furfur ah aad uga qaado.
noocan ayaan isticmaalayaa. haddii aad doonayso biyaha makaronaha ama baastada markaad sameynayso inayna dhulka kaaga daadan, milqaacad wooden spoon ama milqaacad looxa ayaa dusha laga saaraa, daboolka iyo dista ayaa milqaacada loo dhexaysiiyaa. waanaad ka tegi kartaa wax biyo ah oo kuukarka dushiisa kaaga daadanayaana ma jirayo, laakiin haddaad daboolka qab ku siiso ood wada xidho obviously wuu kaa daadan doonaa. iminka maasha allah makaronihii waa diyaar, waan soo maydhay, wuu bisil yahay. xoog uma jilicsana maadaama uu rabo inaan dib u huuriyo, laakiin wuu bisil yahay oo wala calaalin karaa. iminka markaa waxaan sameynayaa suugadii iisoo bislaatay ayaan dusha waxaan kaga sii darayaa double cream, single cream baan ka wada raali noqda, single cream baan dusha kaga darayaa. markaasaan horeba idinku sheegay qof kasta iyo familkiisa inta uu ka kooban yahay iyo qiyaasta iyo cabirku isticmaalaya ku xidhan tahay. iminka markaa makaronihii diyaarka ahaa ayaan suugadii ku dhex darayaa. muhiim ma aha inta aad ka shubto aad haddana aad kolba layers samaysid, as long isku kaa dhexgelayaan wax dhibaato ima jiraan. waxa weeyaan muhiimadu in creamkii sooskii creamka lahaayaad samaysay baastada ay si fiican u dabooli karto, ayna hadhow tala qallayl noqonaynin, oo in ku filan suugadaadu ay tahay inay baastada dabooli karto. cuntadani maasha allah waa cunto aada u nafaqaysan, fududna. iminka waxaan ku darayaa cheese-keenii. cheesku daa'iman waxaa lagu daraa marka ugu dambeysa cuntadu bislaanayso, si muxuu hayay uu nafaqadiisu cuntada u gasho, uuna dab badanna isaguma qaato. marka iminka waan isku yara daboolayaa, waa inuu cheeskii dhalaalo. maasha allah saad arkaysaan cuntadii way bislaatay, cheeskeenii iyo creamkii iyo suugadii iyo baastadii wax walba way isdhexgaleen. very very soft and delicious, maasha allah tabaaraka raxmaan. xataa digaageeni lagama arko maadaama uu isku wada kalar noqdeen dhammaantood. in yaroo filfilaan dusha kaga darayaa si ay midab yar ugu sameyso iyo ur udgoon. maasha allah tabaaraka raxmaan, cuntadii waa diyaar. cuntadan familkas u dhan yahay way cuni karaan, yar iyo weyn. aad ba u jilicsan tahay, wayna fudud tahay, waqti badan kaama qaadanayso, nafaqadii adduunkuna way ku dhamaatay maasha allah. qadadan maanta aan sameeyay qadooyin kale oo ka duwan oo noocyo kale ah ayaa channelkayga ka helaysaan. hadday bariis noqoto, hadday baasta noqoto, hadday cuntooyin kale oo maasha allah casriya noqoto. cuntadeena sidana inoo soo baxday maasha allah, aad bayna u macaan tahay, dhadhankeedu arageeduna idinkaaba arkayood ka boganaysaan. waana cunto aada u fudud, waqti badanna may qaadan. maasha allah, ilaahay waxaan inooga rajeynayaa inuu muxuu haye cuntada inoo barakeeyo, intii aan haysanna ilaahay ha siiyo. aad baad ugu mahadsantihiin intaad daawanayseen. ha ilaawin inaad like iyo subscribe channelkayga tirahdaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.